waa halgamaagii hurdada u diiday gumaystaha Israa'iil isaga oo mar ahaa shakhsiga ay ugu raadinta badan tahay Mossad wuxuu noqday libaax sirdoon oo ay ku gamaan kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiintu. Shakhsiga aynu ka hadlaynaa waa Cali Xasan Salaama oo aynu muuqaalkeena ku soo qaadan doono sooyaalkiisii. Magacaygu waa Jimcaale Daahir, halkanina waa Salgaar Media. Ku soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeena. Cali Xasan Salaama oo magaciisa lagu soo gaabiyay Cali Salaama waxa uu sanadkii 1940 ku dhashay tuulada Qowlaad oo ka mid ah deegaanka ay Israa'iil qaadatay 1948. dadkii deegaanka u lahaa ee Carabtana ay gebi ahaanba ka caydhisay. Qoyska Cali Salaama saameyn weyn ayaa ay ku lahaayeen tuulada, gaar ahaan aabihiis oo ahaa shakhsiga ugu caansan deegaanka. Cali Salaama aabihiis Xasan Salaama waxa uu ahaa halgamaa taariikhda Falastiin baal dahab ah ka galay. Wuxuu ka mid ahaa hogaamiyihii kooxdii hubaysnaa ee Carbeed, kuwaas oo dagaal qadhaadh kala hortagay Ingiriiska iyo Yuhuuddii uu watay. Kacdoonkii Carbeed ee ka dhacay dhulka Falastiin 1936 ilaa 1939. Xasan oo dhashay 1912 waxa uu ka qayb galay dibadbaxyadii dhiigga badan ku daatay ee 1933. sidoo kale wuxuu ka mid ahaa hogaamiyeyaashii Jayshul Jihaad al-Muqaddas. wuxuu madax u noqday ciidankii la magac baxay Naftood Hurayaasha ee deegaanka Ramallah oo dhinaca bari ka xiga Xayfa. mid ka mid ah dagaaladii kululaa ee deegaanka ku dhex maray iyaga iyo Yuhuudda 1948 ayaa uu Xasan dhaawac ka soo gaadhay sambabka bidix May 1948. dhaawacaas oo 2 maalin kadib u geeriyooday. Xasan Salaama waxa uu dhalay Cali Xasan Salaama oo noqday sargaal sirdoon oo howlgallo yaab leh ka fuliyay Israa'iil gudaheeda iyo dibaddeedaba. muddo dheer ayaa sirdoonka Mossad waqti, maal iyo maanba ku bixiyay khaarijintiisa. nacaybka guud ahaan Falastiiniyiintu u haya Yuhuudda waxa isaga u dheeraa isagoo arkay amaba indhihiisa ku arkay aabihiis oo u dhimanaya dhaawaca ka soo gaadhay dagaalka Yuhuudda. Markii aabihiis geeriyooday, hooyadii oo ka cabsi qabta in Yuhuuddu ay la soo raadsadaan si ay u dabar gooyaan firkii halyeygii Falastiin ayaa ay ula baxsatay dhinaca dalka Lubnaan, waxaana muddo ku noolaa xerada qaxootiga ee Nablus. Cali Salaama xeradaas ayaa uu ku qaatay waxbarashadiisa dugsiga oo caan ku ahaa kaalmaha hore. Cali Salaama waxa ay waxbarashada jaamacadda isku soo gaadheen rag badan oo Falastiiniyiin caan noqday. halganka iyo siyaasadda waxa uu bartay cilmiga injineerinka. muddo gaaban kadibna waxay isbarteen Yaasir Carafaad oo xilliyada aasaasay ururka Fatah. sanadkii 1965 ayaa uu noqday agaasimaha waaxda dadweynaha ee ururka xoreynta Falastiin. 1948 ayaa loo magacaabay hogaanka hay-ad lagu magacaabo Mossad. Rasad Atawra oo ahayd laanta sirdoon ee ururka Fatah. sanadkii 1973 ayaa uu noqday taliyaha laanta sirdoonka ee ururka Fatah. sanadkii 1970 ayaa uu noqday taliyaha laanta howlgallada gaarka ah ee la dagaalanka sirdoonka Israa'iil. wuxuu kale oo aasaasay Sebtembarta Madow. wuxuu fashiliyay sidoo kale basaasadii Carbeed ee Aamin al-Mufti, isagoo qabtay howlo muhiim ah, isla markaasina ka mid ahaa maskaxdii dejisay dilkii lagu qaarajiyay 11 ciyaartooy oo uga qaybgali lahaa Israa'iil ciyaaraha Olombikada ah. ugu dambeyn 22 January 1979 ayaa la qaarajiyay libaaxii iyo halgamaagii dalka Falastiin, kaas oo ay khaarijintiisa ka qayb ahayd amaba ay soo abaabushay naag lagu magacaabi jiray Erika Jambar. intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa qisada libaaxii Falastiiniga ahaa ee inta ka badan 10 sano ay Israa'iil ku daba jirtay.